وأقلبنimo Arbacaa taariikhduna ay ku beegan tahay 19 bisha Abriil sanada 2023 ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. Saamaynta ka dhalatay dagaalka bishii saddexaad ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sii korodhay taasi oo si weyn looga dareemayo gudaha Somaliland. Dagaalka Laascaanood ayaa waxaa ka dhalatay saameyn dhaqaale oo inta badan laga dareemay suuqyada Somaliland iyadoo gabi ahaanba uu joogsaday isku socodkii ganacsi ee Somaliland iyo deegaanada SSC. Qaar ka mid ah ganacsatada dharka ee magaalada Burco ayaa xaqiijiyay inuu jiro hoos u dhac dhaqaale oo aad u weyn xilli loo diyaar garoobayo munaasabadda Ciidul Fidriga. sanadkan waxaad moodaa in bulshadii reer Laascaanood ay ka dhex maqan yihiin dadka inoo imaan jiray ee naga adeegan jiray ayuu yiri mid ka mid ah ganacsatada dharka oo la hadlay bahda warbaahinta. Ganacsatadan ayaa waxa ay sheegeen in suuqa magaalada Burco uu tabayo macaamiil fara badan oo uga imaan jirtay dhanka iyo magaalada Laascaanood balse ay hadda dadkaasi deegaano kala qaxooti ku yihiin dagaalka socda awgii. Waxaanu dareemaynaa in macaamiil badan oo aan wax badan ka iibin jirnay ay maqan yihiin sanadkan haddaanu nahay ganacsatada wax waliba nabadda ay ku jirtaa ayuu yiri mid kale oo ka mid ah ganacsatada magaalada Burco oo la hadlay bahda warbaahinta. tan iyo markii dagaalku ka qarxay xarunta gobolka Sool ee Laascaanood waxaa gabi ahaanba istaagay ganacsiga labada dhinac kadib markii isimada SSC ay jireen tacaamulkii ganacsi ee kala dhaxeeyay Somaliland. sidoo kale waxaa saameynta dagaalkani qayb ka ah inay istaageen safaradii ganacsi ee ka imaan jiray dhanka Puntland iyo deegaanada kale ee Soomaaliya. isimada SSC ayaa hore u sheegay in wax safar ganacsi oo Somaliland u socda amaba ka socda uusan mari karin dhulkooda kaas oo si rasmi ah dhankooda ugu dhaqan galay 15kii bishan Abriil. Maamulka SSC ayaa waxa uu joojiyay dhammaan ganacsigii ka dhaxeeyay SSC iyo Somaliland sidaas darteedna waxaa reeban in wax ganacsi aan uga yimaado Somaliland sidoo kalena mid ka socda uu ka gudbo deegaanada Qaatumo. arrimahan ayaa imaanaya xilli ay sii xogeysatay xiisada dagaal ee u dhaxaysa Somaliland iyo SSC ayna Somaliland ku dhawaaqday in dib gacanteeda ugu soo celinayso magaalada Laascaanood taasi oo ay ku sugan yihiin ciidamo beeleedyo xoogan oo taabacsan garaadada SSC. si kastaba dagaalka Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa socda muddo ku siman 3 bilood waxaana gabi ahaanba burburi waan iyo dhexdhexaadin isku xilqaameen dhinacyo kala duwan kadib markii labada dhinac ay halkaas isku hayay isku xireen shuruudo adag oo aan laga gudbi karin si la isugu yimaado miiska wada hadalka. ergeyga madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada iyo gurmadka abaaraha xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si weyn u dhaliilay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ku sheegay in isdhaxyaacu ka jiro hay'adaheeda. ergeyga oo booqasho ku jooga magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in xukuumadda Xamse Cabdi Barre ay sidii la rabo u maamulin dhaqaalaha gargaarka ee la soo gaarsiiyo oo dhowr jeer la wadaagay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha arrintaasi fashilka ku ah dowladda uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud. dowladda Soomaaliya lama xisaabtanto hay'adaha ka shaqeeya samafalka iyo gargaarka mudnaanta ay dowladda u baahan tahay miiska looma saaro. Soomaaliya waxaa ka saari kara gacan horsi iyo inay ku tirsanaato ajnabiga waa isla xisaabtanka ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. dhaliisha weyn ee ergeyga u jeediyay xukuumadda uu hogaamiye Xamse Cabdi Barre ayaa inaysan jirin wada shaqayn wasaaradaha ka dhaxaysa taasoo keentay isdhaxyaac baahsan oo ka jira hay'adaha dowladda oo lumisay mas'uuliyad iska saaridda arrimaha mudnaanta u leh dowladda gaar ahaan arrimaha gargaarka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in aan la aqbali karin in gargaarka Soomaaliya laga dhigo wax laga ganacsado kuwa deeqda bixiya kan ayuu u soo dhiibaa kan waaye kan shaqada la habsaamay ee haraadiga ku noqday. dowladda Soomaaliya waxaa ka saari kara gacan horsi inay ku tirsanaato ajnabi waa isla xisaabtan la'aan sidaasi darteeda waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan. arrintan ayuu ku tilmaamay ceeb qaran isla markaana loo baahan yahay in isku mashquulka hoose ee bilaha iyo shakhsiyaadka ah laga gudbo si Soomaaliya ay uga baxdo tuugsiga caalamiga ah sida uu hadalka u dhigay. dowladda waa inay dadka ku kalsoonaadaan waxaan ka mid ahay dadka su'aalaha ka qaba shaqada xukuumadda daliilna ka keeni kara laakiin ilaa iyo hadda aragtida iyo dhaliisha aan qabo go'aankayga waa in aan si gaar ah u siiyo madaxweynaha ayuu yiri xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ergeyga madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada iyo gurmadka abaaraha. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa la sheegayaa inqilaaf xoogan xilligan uu ka dhaxeeyo taasi oo keentay in xiriirka wada shaqayntooda uu noqdo mid hooseeya oo gabi ahaanba meesha ka baxa. Xamse Cabdi Barre ayaa xildhibaankan u arkaa inuu halis ku yahay shaqadiisa isla markaana iska horkeeni karo isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maadaama
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame haatan uu bilaabay qorshe uu bannaanka ku soo dhigayo ceebaha ay leedahay xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre taasi oo haddii ay bannaanka timaado keeni karta fashil xooggan. markan haddii aynu ogno madaxda hay-adaha ammaanka ee dalkii maamulka gobolka banaadir oo shir xasaasiya ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa shirkooda diiradda ku saaray xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka, amniga caasimadda iyo sida loo dardargelin karo amarkii ka soo baxay madaxweynaha filada jooga xasan sheekh maxamuud. waxaana shirkaasi uu daba socdaa shir shalay ay magaalada muqdisho ku yeesheen xubnaha ugu sareeya hay-adaha ammaanka, islamarkaana war ay kaga soo saareen howlgallada ka soconaya magaalada muqdisho loogu magacdaray ciiltire. balse waxaa kulankan la sheegayaa inuu yahay mid degdeg ah oo mar kale wasiiru dowlaha wasaaradda amniga maxamed cali xagaa uu isugu yeeray mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka ee ka howlgala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kadib amar ka soo baxay madaxweynaha filada jooga xasan sheekh maxamuud. shirkan ayaa sidoo kale waxaa diiradda lagu saaray qarxiyo waaweyn oo soo galay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya oo xubnaha ku jira xirada xalan ay ka digeen in lagu weerari karo meelo waaweyn oo ku yaala caasimadda magaalada muqdisho. booliis militaro ayaa lagu amray in baaritaanka ay xoojiyaan, islamarkaana gaadiidka soo galaya caasimadda iyo kuwa ka baxaya si gaara loo baaro, bajaajlada si fiican loo baaro, xaafadaha qaar ee magaalada muqdishona si weyn loo baaro maadaama caasimadda qaraxyo waaweyn ay soo galeen. 48 saac ee soo socotana laga cabsi qabo in weeraro waaweyn al-shabaab ay ka geystaan gudaha caasimadda. villa soomaaliya ayaa ammaankeeda aad loo adkeeyey, waxaana gebi ahaanba loo diiday inay adeegsadaan waddadaasi gaadiidka hay-adaha dowladda mas-uuliyiintooda ay isticmaalaan iyo kuwa ciidanka, taasi oo looga gol leeyahay xoojinta ammaanka. booliis militaro ayaana lagu wareejiyey baraha kontarool ee caasimadda ku yaala. sidoo kale 60kii askari ee dhowaan lagu soo tababaray dalka Serbiya ayaa xoojinaya ammaanka madaxtooyada Soomaaliya maadaama xasan sheekh maxamuud dhowaan amniga madaxtooyada ku wareejiyay ciidamadaasi lagu soo tababaray gudaha dalka Serbiya. madaxda hay-adaha ammaanka ee magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaana haatan la faray in ammaanka ay adkeeyaan. sidoo kale mahad maxamed salaad ayaa waxaa la sheegayaa in lagu amray in ciidamadiisa ay galaangal sameeyaan, isla markaana caasimadda xuraansi ay ka bilaabaan maadaama halis xoogan caasimaddu ay soo wajahday oo qaraxyo waaweyn oo halis ku ah nolosha shacabka ku dhaqan caasimadda muqdisho shabaab ay soo geliyeen iyagoo ka arsanaya madaxweynaha filada jooga xasan sheekh maxamuud maadaama dagaal culus uu ku dhawaaqay mar kale inuu ka bilaaban doono gudaha dalka. shabaab oo ka hortagaya dagaalkaasi ayaana haatan caasimadda ka bilaabaya falal ay ku qalqalgelinayaan shacabka caasimadda muqdisho. mas-uuliyiintan oo kulankan ka qariyay warbaahinta ayaana haatan waxaa la sheegayaa inay ku ballameen in la xoojiyo ammaanka caasimadda laga hortago weerarada al-shabaab. wasiiru dowlaha amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xagaa ayaana aad u ammaanay ciidamada cusub ee sugaya amniga caasimadda kuwaasoo dhowaan lagu soo tababaray dalka Uganda, wuxuuna sheegay in ciidamadan uu ku kalsoon yahay madaxweynaha Soomaaliyana uu aad ugu qanacsan yahay shaqadooda oo ay ka hortagi karaan weerarada al-shabaab haatan ay doonayaan inay ka fuliyaan magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.